Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asxaabta ay kulanti wanaagsan meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbixinadii ugu dambeeyey ee ciyaaraha saaxiibayaal. Waxaan eegi doonaa kulankii u dhexeeyay kooxda kubadda cagta Bayern Munich iyo kooxda lagu magacaabo Barcelona. Kulankaas oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa xal dheelay. Waxa uu ahaa kulan aad u xamaasad badan, inkastoo guushii ay naadiga Bayern Munich ay raacday. Ayaan saaxiib eegi doonaa kulankii Ajax iyo kooxda Liverpool oo Anfield lagu qabanayay oo goor dambe ay bilisay kooxda lagu magacaabo Liverpool. Ayaa saaxiibayaal haddana eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato barteenaan, fadlan waxaa kaa mudanahay nasiih, waana ku mahadsantihiin asxaabtay la jaanqaadkiin. Xalay waxaa dhacay laba kulan oo waaweyn oo ah kulamada khaaska u ah dhammaan adduunka oo dhan. Kulanka koowaad waxaa kulanka u dhexeeyay Bayern Munich iyo kooxda lagu magacaabo Barcelona. Kulanka wuxuu ahaa kulan weerar iyo weerar celis lahaa. Qaybtii hore ee kulankana waxa uu ku dhamaaday 0-0 maadaama labada naadi ay lumiyeen boononiyaal badan oo gool loo filan karay. Barcelona ayaa kulankii qaybtiisii hore tugtug roonayd kadib markii ay 2 gool ama 3 gool loo filan karay inay dhaliyaan oo Roberto Lewandowski oo ninka uga ciyaara uu khasaariyay goolal badan oo gool loo filan karay saaxiibayaal. Marka kulankan wuxuu ahaa kulan labadaba naadiba oo xogaa khalkhal ka muuqdo maadaama booniga ay dhisayaan uu ahaa booniga nasiib ah oo mar walba booniga khaldiyay labada naadi ee Barcelona iyo Bayern Munich. Boonigada xalay waxaa ku jiray khalkhal baa ku jiray. Khalkhal baa ka jiray xagga khadka dhexe iyo dhammaan waxaad moodaysaa kooxda lagu magacaabo Bayern Munich in xalay dhexda laga haysay qaybtii hore ee ciyaarta, in dhexda laga haysay moodaysaa oo boona isku dhisto ay garbaha ay geenaysay ama ay garbaha ay kasoo dhisay duwaha iyo tareega ama garabka bidix iyo garabka midig ee weerarka ay kasoo dhisay booniga moodaysaa oo khadka dhexe boonigooda uu ka ahaa counter attack, halka Barcelona ay booni fiican dheelaysay xogaa xasiloon asagoona khalad badan uu ka jiro. Ay booniyaal badan ay luminayeen baaska iyo wax walba ay luminayeen kooxdan jacburka ah ee loo soo dhibay Xavi Hernandez. Marka kooxdan lama filayn in kulankan laga raayo, haddii laga raynayna goolal laba gaaraya iyo 0 in laga raayo lama malaynayn maadaama kooxda Barcelona ay waayahanba ama horyaalka ay si fiican u fiicneyd maadaama goolal badan ay dhalinayeen, fursado badan ay abuurayeen. Kooxda lagu magacaabo Barcelona oo hogaamiyo laacibkooda iyo halyeeygeedii hore ee lagu magacaabo jiray Xavi Hernandez. Marka kulankan saaxiib xalay nasiibka lagu kala qaaday Bayern Munich baa 2-0 ku tidhay kooxda lagu magacaabo Barcelona. Waxaa ognahay in kooxda Barcelona kulankoodii ugu dambeeyay ay ciyaaraan kooxda lagu magacaabo Bayern Munich iyo Barcelona in 8-2 lagu xasuuqay kooxda lagu magacaabo Barcelona. Kooxdan lagu magacaabo Bayern Munich kooxda ay qabato 2 gool agaho. Waxaan ogeyn kooxda Chelsea, waxaan ogeyn kooxda lagu magacaabo Tottenham, waxaan ogeyn Arsenal, waxaan ogeyn Barcelona. Marka kooxdan kooxdii u jabta Bayern Munich kooxdii u jabta bas way darsi gool ah ma lagu dhiibaa champion ku sulaamis. Haddana Arsenal goorma champion ugu dambeysay intaqaana goorma wax waa Bayern Munich 10 gool lagu firdhay. Kaarta Arsenal ku dhacday hadda Barcelona haystaa. Sanad walba Arsenal champion timaada Bayern Munich baa lagu aadiyaa 10 gool loo dhiibaa. Sanadka dambe timaada 10 gool waa Arsenal. Marka kaarta Arsenal haysatay waa haysatas sanadkan kooxda lagu magacaabo Barcelona maadaama mar walba lagu aadiyo Bayern Munich ay wax goolal ay ka gaari waayeen, hal goolal ay gaari waayeen. 4 kulan ay soo dhaleen Barcelona iyo kooxda lagu magacaabo Bayern Munich waxa leeyahay 16 gool iyo 2 gool ay kala leeyeen, halka kooxda Barcelona ay dhalisay 2 gool kaliya oo qura. Bayern Munich 16 gool ay dhalisay. Waxa ogeyn kulankii la yaabka ahaa ee 8-2 gool baa ogeyn oo bugbaxa Champions League 2020. Marka saaxiib waxa moodaysaa in Barcelona mar walba ay ka awood liidato ama ay ka hooseyso kooxda Bayern Munich marka ay kulmaan. Hadeertaan groupkan oo ah group aad u adag
aad iyo aad naadiga kasoo bixi kara horta Bayern Munich halkaasay taalaaye kooxda Inter Milano iyo Barcelona yaa Europa League aadi doona yaa sanadkan Europa League aadi doona maadaama kulankii hore ay Bayern Munich iyo Inter Milano ay Barcelona reysay Inter Milano laga raayay ayagoo gurigooda jooga halka kooxda Barcelona ay soo reysay marka hadeertan waxaa 3 dhibcood haystay 3 dhibcood Barcelona iyo Inter Milano halka Bayern Munich 6 dhibcood haysato marka Bayern Munich xagga taalaay ma Inter Milan baa gadaal aadaysa ma Barcelona baa gadaal aadaysa marka groupka waa group aad u adag oo aad shuqulkiisa macnaha u badan yahay kooxdan in waraabowga qabto oo hadaad u jabtid aanu ka dhaafin aanu xishoonayn way koox aan xishoonayn aan xishood aan lahayn way Bayern Munich wax xishood ma lahan hadaa u jabtid waa bas 10 darsan gool aan ka soo kaban karin ay ku dhiibayaan marka sanad walba Barcelona way nimankaas sareeba oo nafti Ilaahay bay u keeneen Barcelona Bayern Munich marka saaxiibayaal waxa arkaynay oo kale Muller oo saaxiibkiisii hore ee Robert Lewandowski kuurayaaba saas u fiirinaya wixii anaga noo imaanaysa marka ruuxantii saaxiibayaal kulankan wuxuu ahaa kulan aad u xamaasad badan saxaab badan baa isku arkay Lewandowski waxa la soo dhaafay ka tagay Bayern Munich ayaa mar kale gool dara kala laabanaya Allianz Arena waqti badan guulal iyo koob ku soo qaaday maadaama uu yahay haliyay ama nin waqti dheer u soo leeliyay kooxda kubadda cagta Bayern Munich xasuus gooniina ku leh kooxdan lagu magacaabo Bayern Munich ee ka dhisan Bundesliga ee dalka Germany marka kulankii saas lagu kala baxay saaxiibayaal kulankii xalay ka dhacay halkaas waa lagu kala baxay waa lagu kala calaf qaaday marka saaxiibayaal waxa ay doonaa kooxda Liverpool iyo Ajax oo ay kooxda Liverpool ay xilli dambe gaadhay guul ay xilli dambe gaadhay tuugadu kooxdan waxa aniga kooxdan Ajax iyo kooxdan lagu magacaabo Liverpool hal iyo hal lagu mahayn karo kooxdan tuugada hal iyo hal lagu mahayn karo walow goolkii hore laga hormaray laakiin Bright ay ka dimaadeen laakiin aniga ma filaynba in kooxda Liverpool hal iyo hal lagu hayn karo ma filayn waxa ay kooxdan tuugada oo khiyaanada badan leh marka ciyaarta watan fiiri laba iyo xilli dambe inay guul gaareen waa iska filaaye marka saaxiibayaal kulankaasna waxa kulan aad xamaas badan qaybtii hore ee ciyaarta waxa muujinaysa Ajax inay aad u tukturoonayd kooxda Liverpoolna ay weerar difaaceed iyo counter attack dheelisay ayadoo joogta garoonkeeda Anfield oo jamaahiirteedii imtixaanka ahayd la joogta marka kulankaana saaxiib aad bay u dheeleen oo waxaan moodaysaa kulankan inuu ahaa kulan xamaasadiisa wata inkastoo dadka badankood ay Bayern Munich ay ku mashquuleen iyo Barcelona laakiin kulankana waxa kulan aad u fiican markii dambana ay gaadhay guul ama guushii ay soo dahday ay gaadhay kooxda Liverpool marka Liverpool sanadkan waxa moodaysaa inay ayr soo kabanayso ayr soo laabanaysa moodaysaa maadaama warar